الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله إلهي بما هذا السكالة ما أنت هالك نسكوكن كياني سي أينو وعرقنا شغادا آدي كوعلوس هيئدة تيادو أي كسر شغيني سي waxa goob joog ka ah waan u mahad celinayaa Gudoomiyaha gobolka Barsaab gobolka maamulaha kastamka Berbera dawladda hoose ee Berbera oo wada shaqayn dhow ay naga dhaxayso aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxay tusaale u tahay laamaha dawladdu haday si fiican wada shaqeeyaan inaynu wax badan qabsan karno halkan waxa lagu maanta lagu gubayaa 12 container oo alaab caano iyo sharaab isugu jira ah oo muddo 12 bilood ah sanad ku dhow dekedda yaalay muddadaasna aanu muxuu ahaa kala shaqaynaynay laamaha dekedda haday tahay DP World iyo haday yihiin shipping line-ka iyo muxuu ahaa ganacsatadii keenay oo isugu jiray ganacsi ama ganacsade muwaadina iyo ganacsato ajnabiya oo markii alaabta aanu qabanay ee waqtigoodu aad u soo dhawaa ay ganacsatadii ajnabiga ahayd ka baxsadeen taas oo annaguna aanu tallaabadii xeerkayagu dhigayo waajibaadkayaga aanu ka gudanay oo qaadatay muddo badan inaanu alaabtan muxuu ahaa ay ka baxsadeen dadka ajnabiga ahi aanu sharciga la tiigsano dadkii ka mas'uulka ahaa ee muwaadiniinta ahaa taasoo ay nagala shaqeeyeen xiriirlayaha guud ay nagala shaqeeyeen wasaaradda ganacsigu liisankiina shirkadda annagoo xeerkayaga muxuu ahaa qodobkiisa 9 adeegsanayna shirkadda liisankii lagala noqday wixii khasaare halka yimidna laga qaaday shirkadda si alaabtan lagu gubo alxamdulillah maanta ayay noo suurta gashay waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa laamaha kala duwan ee nala shaqeeya maareeyaha dekedaha muxuu ahaa dawladda hoose Barsaabka kastamka ama maamulaha kastamka tubatariyada ama ciidanka muxuu ahaa ilaalada dekedda dhamaantood aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa shaqo caadi ah oo annaga caadi nagu ahayd laakiin alaabtan oo 12 container ah oo ah alaabtii ugu badnayd ee hal mar ama hal shirkad intay dalka keentay aanu muxuu ahaa waajibaadkayga ka gudanay sharciga waafajinay muxuu ahaa tallaabooyinkii sharciga ku munaasabka ahaan aanu qaadanay waxaan doonayaa halkan inaan fariin u diro ganacsatada u diro waxa jira ganacsato badan oo muwaadiniina iyo ganacsato ajnabiya oo dalka si wanaagsan uga ganacsada iyo in yar oo dalka u arka wali in aanay ka jirin nidaam iyo mas'uuliyad ka saaran ummadda in laga ilaaliyo wixii xumaaday waxaan u sheegaynaa muxuu ahaa inaanu sharciga iyo xeerka adeegsanayno oo aanu ka hortagayno wax kasta oo wax yeelaya badeecad kasta oo muxuu ahaa tayadeedii xumaatay waqtigeedii ama ha joogo ama waqtigeedii ha dhamaado aad iyo aad baad mahadsantihiin ganacsatada wada shaqayn dhow baa naga dhaxaysa waxaanu kaloo insha Allah aanu commission ahaan aanu dhawaan soo saareynaa qaraaro iyo go'aamo iyo wareegtooyin ku saabsan badeecadaha kala duwan iyo xilliga ugu dambeeya dalka la keenayo waxa jira badeecado badan oo ganacsatadeenu qiimo yar ay ku soo iibsadaan marka xilligeedii soo dhow yahay go'aan cad baanu ka soo saareynaa inaan taasi dhicin si aynu ilaalino badqabka badeecadu markay dalka timaado iyo gudaheeda inta lagu isticmaalayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh